goobaha ku ganacsadaan Soomaaliya ganacsato Ethiopiana ayaa waxaa saaki ku soo kala shakhsiyaad ka socday shirkadaha iibiya dharka oo ay weheliyaan askar cad ah iyagoo ulajeedkoodu ahaa inay ganacsatadaasi ka ururiyaan dharka magaca ku qoran yahay oo aan ahayn shirkadii magacaasi sameeyay ganacsatadii iibinaya dharkaasi sharci darrada ayaa dagaal kala hor yimid dadkii doonayay inay alaabtaasi si qasab ah ku ururiyaan iyagoo aan la wadan wax cadeynaya ka socdaan shirkadii la dharkaasi ganacsatadaasi oo isugu jiray Soomaaliya Ethiopian ayaa waxa isla markiiba weecin ciidamada booliiska ka howlgala xaafadda oo ganacsiyadaasi ku lahaayeen halka kuwa kalena ay dalbadeen ciidamada isla markiiba goobtaasi soo gaaray intaa kadib ciidamada booliiska oo ay weheliyaan qaar ka tirsan askarta saariska ayaa isla markiiba waxay xireen jidadka soo gala xaafadaha ku yaala suuqaasi kadibna waxay dibadda u soo saareen ganacsatadii suuqaasi wax ku iibinayay in ka badan 3 saacadood ay baaritaano kala duwan ka wadeen gudaha suuqaasi iyagoo ugu dambeyntiina halka ka rartay alaabo aad u tiro badan oo ilaa imika cadadooda aan la shaacin mas'uul ka tirsan jaaliyadda Soomaalida gobolka Western Cape lagu magacaabo Muuse Afra ayaa ka warbixiyay howlgalladii maanta ay sameeyeen ciidamada saariska bismillaahir rahmaanir rahiim dhibaato weyn ayaa ummadda Soomaaliyeed ku dhacday maanta dad saaka taajiriin ahay ayaa maanta halkan ku faqiiray oo hantidooda ay ku baabaaday marka waa dhibaato ummadda Soomaaliyeed soo diristay mar la dilo iyo mar hantidooda sidaan aad arkaysiin loo wada qaato marka dhammaan ummadda Soomaaliyeed waa tacsiyeynayna wax kasta soo gaaray suuqa baaritaanada kala duwan ka sameeyeen maanta ciidamada booliiska waliba qaybta saariska ayaa waxaa qaybtiisa sare ku yeelay masjidka ugu weyn ee xaafadda Belfil ay Soomaalidu ku badan tahay ka oo lagu magacaabo masjidka Al-Sunna iyadoo loo diiday inay Soomaalidu ku dukadaan salaadii duhur sabab la xiriirida amniga awgood oo halkaasi baaritaano ay ka wadeen ciidamada waxaana kadib dib loo furay masjidkaasi iyadoo Soomaalidu loo ogolaaday inay ku dukadaan Cabdullaahi Qorshe Royal International TV Cape Town South Africa